بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan bilaabaynaa casharkii fasalkii toddobaad oo ka hadlaya magacyaal pronoun waa xubinta lixaad ee xubnaha hadalka af Soomaaliga. casharkuna waa kii sagaalaad. waxaan isweydiinaa waa maxay magacyaal. magacyaal waa erey u dhigma magac gala kaalinta magac kaga jiro hawlaan oo qabta hawsha magac ka haya hawlaan. magacyaaladu waa afar nooc: magacyaal qofeed, magacyaal tilmaameed, magacyaal lahaanshiyeed iyo magacyaal qof su'aaleed. waxaynu ku horreyn doonaa magacyaal qofeed oo isagu u qaybsamaya afartan. magacyaal qofeed wuxuu u qaybsamayaa isaguna afartu waxay kala yihiin magaceed, magacyaal magaceed, magacyaal faacileed iyo magacyaal mafcuuleed iyo magacyaal nisbeed. mid walba gaarkiisa ayaynu u geli doonaa. magacyaal magaceed. magacyaal magaceed waa magacyaal madax bannaan oo macaamilo sida magaca qaatana qodob sida magaca. marka qofka koowaad aniga, jamcu wuxuu noqonayaa annaga iyo innaga. annaga iyo innaga waxaa u dhexeeya annaga qofka la hadlayo ayaa ku jira, ayaan ku jirin. qofka innagana waxaa ku jira qofka lala hadlayo. halkaas iga fiirso. annaga haddaan ku idhaaho qofka lala hadlayo kuma jiro. innaga haddaan idhahdana qofka lala hadlayo ku jira. qofka labaad wuxuu noqonayaa adiga, mufradkiisu jamcuna wuxuu noqonayaa idinka. qofka saddexaad mufradka ee lab wuxuu noqonayaa isaga, ladiguna wuxuu noqonayaa iyada, jamcuna wuxuu noqonayaa iyaga. magacyaalkan waxa sumadu ah qodobaa raacaya. qodobadu waa ku arkaysaa ga 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 ga. marka wuxuu macaamilayaa tabta magaca oo wuxuu qaadanayaa qodob. saasaa loo leeyahay magacyaal magaceed. magacyaal faacileed. magacyaal faacileed waxa weeye magacyaal qofeed mar kasta faacil ka ah hawlaata uu ku jiro. wax kala ma noqdo isagu faacilun weeye. qofafkiisuna waa sidan. qofka koowaad mufrada aan, jamcu wuxuu noqonayaa aanu. marka qofka la hadlaya aanu ku jirin. markuu ku jiro laakiin waxaa la odhanayaa ayno. qofka labaad aad wey mufradku, jamcuna waxa weeye aydun. aydun aad looma yaqaano marka dadkan jooga hadda ee Soomaalida waxaad moodaan inay aqoon ba ereyga. qofka saddexaad oo lab oo mufrada wuxuu noqonayaa uu, ladigiisu wuxuu noqonayaa ay, jamcuna wuxuu noqonayaa ay. marka misna waxa weeye wuu tagaa, way tagtaa, way tagaan. kanaa jamci noqonaya. kii saddexaad wuxuu noqonayaa magacyaal mafcuuleed. magacyaal mafcuuleed waa magacyaal mar kasta ka ah mafcuul hawlaar kasta ku jiro. haddaba mafcuulkan baa u kala baxaya mafcuul quman. marka mafcuul quman markaan leeyahay waxa weye magacyaal mafcuul qumana iyo mafcuul dadban. magacyaal mafcuuleed quman baynu markaa gelinaa. halkan waxaad arki doontaa kaleed iyo isaad baa soo socda isaguna. kaleed waxa weeye qofkii mafcuulka maaha mid kale ayaa qabanaya hawsha. isaadna waxaa qabanaya qofkii mafcuulka laftigiisii. marka kalaan ku horeyno. magacyaal mafcuuleed qumani waa magacyaal mafcuulku yahay mafcuul quman oo toos falka faacilka u saameynayo ama u taabanayo. waana kuwan. waxa weye qofka koowaad i weye. af ingiriisi wuxuu bedelaa me. na waxa weeye markuu jamca yahay ee qofka lala hadlaya aanu ku jirin. ina hadday noqotona qofka lala hadlaya ku jira. ku waxa weeyaan qofka labaad oo mufrada. qofka labaad jamcina waa idin. markuu qof laawo yahay ee la yeeli karan mar dambe arki doono oo ku arki doono possessiveka waxaan leeyahay passive iyo active voiceka la weeye. marka uu yahay مثلا حوي قفلاوي وانا مفعول وقمنا لصق مقعيالكي قمنا السيد بين مقيرنا مفعولك قمنا السيد مقعيال مفعولات ضدبن او السيدة مقعيال مفعولات ضدبن السيدي ومقعيال مفعول سيدا مقعو شيء فاعلك ايه مفعولك هوراتو واستقف كليا فاعلك ايا فالك اسكو سمينيا sidaas baa loo leeyahay isaad iska jir wuu isqaynay. halkan waxaad arkaysaa
isla qof keliya faacilkii mafcuulkii uudana waxa weeye waa faacilkii istana waxay noqonaysaa mafcuul quman isagaa isku falay hawshan iscuno iscalaasho way istireen markaa faacilkii mafcuulkii ayaa isla qof keliya is laakiin waa ogow faacilkuna waa kan ay istuna waxay noqonaysaa mafcuulkii cashirkii sagaalaad baynu ka soo baxnay haddii waxaynu u gudubnay cashirkii tobnaad waxaynu weli ku jirnaa mafcuulkii magacuyaal mafcuuleed hadda waxaynu gelaynaa magacuyaal mafcuuleed dadban kii qumanaa waynu ka soo baxnay hadda halkaas waxa weye markaa qofka koowaad sharax waxa weye magacuyaal mafcuuleed dadbani waa magacuyaal mafcuulku dadban yahay oo aan falka la faray si toosa u saameynayn qofka koowaad waa qaad noona waxa weye jamci oo kuma jiro markan qofka lala hadlaya inooba qofka lala hadlaya ku jira kuu waa qofka labaad oo mufrada iyo kaa jamcoodu wuxuu noqonayaa idiin qofka saddexaad wuxuu noqonayaa u jamc iyo fardi labadaba la yeelo dadban oo aan ku arki doono passive iyo active voiceka isaga wuxuu noqonayaa loo iyo loo markaa labaduna waa isku mid marka magacyaaladan haddaan taabanay waa kuwa dadban toos uma dhacayo falkii la fala qaybtii ugu dambeysay magacyaal qofeed baynu gelaynaa oo ah magacyaal nisbeed af ingiriisi waxa la yidhaha relative pronoun weye magacyaal nisbeed waa magacyaal isla og yihiin hadlaha iyo lala hadluhu oo aad moodid inay isxasuusinayaan waana kuwan ka markuu lab yahay mufradka yahay ta'na waa ladigii kuwa waa jamci kii waa labkii tii ladigii kuwiina waa jamci haddaan imika halkan soo geliyo waxaa misalan kuwii waxay ka soo bixi waaya casharka waa la karbaashaya ama ta ka soo bixi weyda marka waa qof la isla garanayo markaa hadlaha iyo lala hadlo isla garanaya hadda waynu ka baxnay magacuyaal qofeed waxaynu gelaynaa magacuyaal tilmaameed oo ah qaybtii labaad ee magacyaalada magacuyaal tilmaameed waa magacuyaal wax tilmaama sida magacu tibaaxayo waana kuwan magacuyaal tilmaameedu demonstrative pronoun baa la dhahaa markaa meeshan waxa weeye waxa kuu dhow waxaad leedahay kan waa lab yahay tan waa ladigiisii kuwana waa dhow yihiin oo jamci markuu ka yara dheer yahay waxaa oranaysaa kaas taas kuwaas kan waa lab kan waa ladig kan waa jamci markuu kasii fog yahay labadanba ayaa la odhanaya keer teer iyo kuweel dadku aad uma yaqaanaan kuwan laakiin xisaabta ku darso bara hadda magacuyaalkii saddexaad baynu gelaynaa laba waynu soo aragnay kan waa kii saddexaad marka wuxuu noqonayaa magacuyaal lahaanshiyeed possessive pronoun wey magacuyaal lahaanshiyeed waa magacuyaal sheegaya lahaanshiya wax la leeyahay magacuyaal lahaanshiyeed waa sidan halkan aad ha loogu fiirsado waayo waxa weeye marna qofka waxlabaa mufrada marna waa jamac marka markuu qofka wax lihi yahay mufrad waa sidan waxaa oranaysaa kayga oo labkiya ladigina wuxuu noqonayaa tayda jamcina wuxuu noqonayaa kuwayga halkan haddaan idiin geliyo wuxuu noqonayaa inankayga inantayda kuwayga waayo kaaga qofka labaad oo lab weeye mufrada taada waa ladigii kuwaagana waa jamci kiisa tiisa kuwiisa iminka eeg qofka saddexaada lab weeye marka wuxuu noqonayaa kiisa markuu ladig yahayna wuxuu noqonayaa tiisa marka halkaas waxa iska fiirso waa qofkii labaad labadan qofka waxa uu lab yahay laakiin wixii la lahaabaa marna lab marna ladig misna inankiisa inantiisa kuwiisa waay qofka saddexaad ladig marka waxa weye wuxuu noqonayaa mufradkii keeda teeda kuweeda marka misna waxa weye inankeeda inanteeda marka iyo kuweeda qofka wax lihi markuu jamc yahay waa ka duwan tahay waa qofka misalan koowaad oo markan waxa ku jira qofka lala hadlayo keena teena kuweena marka aanu ku jirin qofka lala hadlayo waxaa noqonaya kaayaga taayada kuwayaga kiina tiina kuwiina kooda tooda kuwooda
labada haddana waxaa kugu tusaale waxa weeye inankiina inantiina kuwiina marna waxay noqonaya inankooda inantooda marka halkan waxaad arkaysaa in dadku jamcayeen sidii kuwa halkaa horena waxaad arkaysaa qofka waxa dhihi waa mufrad halkan waxaad arkaysaa in qofku jamc yahay inankooda inantooda kuwooda marka sidaa haloo kala garto yaan la isku khaldan magacyaalkii u dambeeyey baynu gelaynaa oo weydiimeed baa la yidhahaa ama su-aaleed magacayaal weydiimeed waa magac yaal oo gaar ah weydiin ama su-aal waana kuwa soo socda kii marka waxa weeye wax lab tii dadigii weeye kuweena waa jamci kuma waa lab yahay waana mufrad tuma waxa weeye mufrad waana dadig yahay kuwamana waa jamca masha imika halka haddaan iisoo geliyo waxaa noqonayaan inankii inantii kuwii marka sidaas ku xafidaysaa